kulanti waxaan saaxiibayaal waa khamiis warka galwareed media saakayna waxa ugu waaweyn dagaalkii ugu xumaa waayaha Puntland oo ka socda magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi madaxweyne Dani iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi oo laga geynayo mooshinno iska soo horjeeda nabad iyo nolol oo lagu eedeeyay inay faragelin toos ah ku hayso Puntland dagaalkana sabab u tahay weerar la qorsheynayo in lagu qaado madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe gudoomiyihii golaha shacabka Professor Jawaari oo shaaciyay sababta ay isku qabteen isaga iyo madaxweyne Farmaajo dad loo qabtay dilka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose ee xalay fiidkii la dilay xog aan ku hayno in dagaalka Cumar Finish iyo wasiir Khadiijo Diiriye lagu xaliyay faragelinta madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Soomaaliland oo mas'uuliyiin sare xilka uga qaaday inay ka gaabeen ictiraaf raadinta maamulkiisa iyo weerar dad badan lagu dilay oo ka dhacay dalka Burkina Faso daawadyalintaasi waxay ahayn qodobada saaka oo khamiis ah taariikhduna ay ku aastaysan tahay 7 bisha 12 November sanadka 2019 ugu waaweyn warka galwareed media waxaan naga xasuusina inaad subscribe saartaan intiina naga cusub sidoo kale saaxiibayaal dhamaantiin aad like saartaan si aad nagu dhiirigelisaan in shaqadan sii wadno aan ku horeeyo markan dagaalkii ugu xumaa waayaha Puntland ayaa ka soconaya magaalada Garowe ee xarunta u ah maamulkaasi Puntland iyadoo xalay weerar lagu qaaday xarunta baarlamaanka maamulka Puntland isla markaana ay jirto qasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dagaalka ciidamada ka wada tirsan Puntland magaalada Garowe ku dhexmaray weerarka lagu qaaday xarunta baarlamaanka maamulka Puntland madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu eedeeyay oo waxa arintaasi ku eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Doobo Daareed ciidamada dagaalamay waxay ka kala tirsanayeen madaxtooyada iyo sidoo kale ilaalada baarlamaanka waxaana ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla saasaynta oo ka dhacday afafka hore xarunta baarlamaanka Puntland ayaa waxay u dhaxaysay ilaalada baarlamaanka iyo ciidan kale oo la sheegay inuu ka socdo dhanka madaxtooyada Puntland ciidamada isugu jira booliis BIS kuwa la yiraahdo iyo daraawiishta Puntland ayaa la soo warinaya in weerarka ay ku qaadeen xarunta baarlamaanka waxaana dagaalka oo saakay ah mid hakad ku jira wali la sheegaya in cabsi dagaal ay taagan tahay weerar kale ay soo tagal tahay isla markaana mas'uuliyiintu ay is eedaynayaan halaskaro ka tirsan ciidamada dagaalamay ayaa goobta ku geeriyooday waxaana dhaawac kale uu soo gaaray intii ay rasaasaynta socotay qof shacab ah qofka shacabka ah waxa uu ka tirsanaa isagu mas'uuliyiinta kale ama mas'uuliyiinta hay'adaha kale ee maamulka Puntland waana uu geeriyooday dhaawac oo waxa uu si gaar ah uga shaqeynayay hay'adda socdaalka xafiiskeeda maamulka Puntland tani waxay ku socdaysaa xilliga magaalada Garowe ka socdo oo la sheegay in mooshin lagu keenayo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo khilaaf uu kala dhaxay madaxweynaha maamulkaasi inkasta oo isgaarsiinta magaalada Garowe ay ciriiri ahayd xalay haddana waxa wararku ay sheegeen in sartaasaynta baqdin ku abuurtay dadka deegaanka dadka Garowe oo xasilooni u bartay ayaa ku argagaxay rasaasta xoogan ee xalay la isweydaarsaday dagaalka ka dhex dhacay dagaalka wax go'aan waayaha Puntland ayaa sidaas ku dhacay waxaana uu yahay mid ilaa hadda socda oo aan xal loo helin madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo isku dayay inuu khilaafka u dhaxeeyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxa liyo ayaa aysan suurto gelin Saciid Dani oo la hadlay saraakiil ka tirsan maamulkiisa waxa uu sheegay in arintan ay ka dambayso nabad iyo nolol oo ah hoggaanka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana uu ku eedeeyay sida Saciid Dani aan ka soo xignay xubna isaga ku dhow in gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaankii maalmo ka hor su'aalo weydiiyay Saciid Dani ay iyagu ka dambeeyaan oo ay doonayaan in meesha laga saaro Saciid Dani oo khilaaf hooseeyo uu kala dhaxeeyo madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Puntland eedayn badan ayaa jirta waxaana dhinaca kale baarlamaanka xildhibaano aan la hadalnay oo galwareed media si gaar ah uga warbixiyay ay sheegeen waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland in uu socdo ole labada dhinac ka soconaya waa xafiisyada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani oo la sheegay in labada mas'uulba mooshinno iska soo horjeeda laga geynayo baarlamaanka dhinaca kale isla wararka la xiriira dagaalada iyo xiisadaha siyaasadda ayaan ku jirnay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa laga cabsi qabaa weerar lagu qaado tani waxay imaanaysaa iyadoo guud ahaan gobolka Gedo markan ay toos ula wareegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana xabsiga ay ku sii badanayaan mas'uuliyiintii taageersana ama ku fikirka ahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Puntland saraakiil ka tirsan ilaalada Axmed Madoobe ayaa galwareed media waxay u sheegeen in laga cabsi qabo weerar lagu qaado Axmed Madoobe isagana uu cabsi badan markan dareemayo maadaama ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka ay markan sameynayaan tallaabooyin ay madaxda sare ee dalka ku qanacsan yihiin markaana shacabka Gedo markan ayaguna banaanbax dhigeen banaanbaxaasi waxa looga soo horjeeday
gudoomiyaashii la xiray ee Luuq Dolow iyo sidoo kale Beled Xaawo kuwaas ayaan ahaa gudoomiyaashii ama mas'uuliyiin taageersan Axmed Madoobe markan Axmed Madoobe siyaasadiisu way soo aruuraysaa ee la leeyahay oo Kismaayo cabsi ayaa ka taagan ciidamadiisana in ay ka goostaan oo iyaga lagu weeraro ayaa laga cabsi qabaa markan Axmed Madoobe dhinaca kalena gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sababtii ay isku dhaceen amaba wixii dhexmaray isaga iyo madaxweyne Farmaajo aqoonyahan lagu magacaabo Maxamed Cali Barre wuxuu yiri waxaan magaalada Nairobi ku kulanay mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ahaa gudoomiyihii 9aad iyo kan 10aad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inta u dhaxaysay 2012 ilaa 2017 waxaan ka kororsaday taariikh aad u weyn ummadda Soomaaliyeed waxay ahayd habeen iga duwan habeenada kale maxaa yeelay waxaan fursad aan u helay inaan dhageysto taariikh iyo dastuur nool oo socda isla markaana wax badan i baraysa isla salaamid iyo ismarxabayn kadib waxaan u guda galnay waraysi guud ee Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed sidii sheeko ay nagu dhibaysay waxaan doo istaagnay taariikh ka bilaabaysa 1914 iyo doorashooyinkii dalka qabsoomay iyo habraacyadii la maray wuxuu ila wadaageen dalka doorasho ka qabsoomay jirtay 5 sano mar lana qaban jiray bisha Maarso doorashadii dhacday sanadkii 2000 waa sanadkii 1962 markii ay dhamaatay muddaxileedkii halka sano ee ku meel gaarka ah ee madaxweyne aadan Cabdulle Cusmaan aadan Cabdi tirada guud shacabka Soomaaliyeed lagu qiyaasay 3 milyan xilligaas labada magaalo ee aan tuulooyinka hoos imaan waxay ahaayeen Laascaanood iyo Berbera oo midiba waxaa ka jirtay 113 xarun codbixin iyo 117 xarun codbixin magaalooyinka kale way ka badnaayeen xarumahooda codbixinta buurha kaba oo kale waxaa ka jirtay ku dhawaad 170 xarun codbixin ah sanadkii 2016 suuragal ma ahayn in la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaan soo jeediyay in la sameeyo gole ay u dhan yihiin saamilada siyaasadda ee ummadda Soomaaliyeed si aan uga tashanno halka laga yimi oo ah in dalka dibadiisa doorasho lagu qabto iyo halka la joogo sanadkii 2012 dalka doorasho lagu qabtay gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo xildhibaanada hal oday uu soo xulayay iyo halkeen ka aadi karnaa halkan beesha caalamka oo dhuunta nooga jirtay oo maalin kastana lahaa waad qaban kartaan ee qabta doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaan waxaan soo jeediyay in la sameeyo doorasho dad badan isla markaana goobaha doorashada lagu qabanayo la badiyo oo magaalada Muqdisho banaanka looga baxo si meeshii hal oday uu wax soo xul lahaa tiro ka badan la sameeyo kadib waa la ila qaatay sidaas ayaan doorasho ku aadnay oo waa lagu guuleystay Allah ayaana ku mahadsan ayuu yiri waa gudoomiye Jawaari oo qofka qoraalkan soo qoray uu sheegay waxaan ku ilaayo mudane gudoomiye maxay xukuumadda mudane madaxweyne Farmaajo kugu maaqtay madaxweyne Farmaajo ayaa ii sheegay ayuu yiri gudoomiye Jawaari iguna yiri dalka waxaan rabnaa inaan doorasho hal qof iyo hal cod ah ka hirgeliyo marka waxaan ka rabaa inaad nagala shaqeyso ma xuma ayaan ku yiri balse waxaan weydiiyay sidee ayaad ugu hirgelin kartaan arintaas bal ii sheeg sidaas ayaan rabaa ayuu ka badin waayay wax jawaab ah oo iga siin waayay markaas ayaan uga warbixiyay in ay suuragal ahayn dhowr arrimood oo ay ka mid tahay inuu dalka gacanta ku wada jirin iyo imkaaniyaadka la haysto waxaan tusaale ugu soo qaatay 1962 oo dadka intan ay ka yaraayeen dalkana uu xor ahaa wixii dib laga maray iska badaa doorashada 1967 wuxuu yiri marka la hadal kula timid madaxweyne Farmaajo wuxuu ugu yiri dhowr goobood oo dadka lagu keenay inay dhacdo doorasho shacabka ay ku dooranayaan madaxweynaha ayaan rabaa taasi hadii ay dhacdo awoodaha madaxweynaha iyo baarlamaanka ay sinaanayaan kor joogtayna ma jiri doonto waxaan ku yiri madaxweyne arrintaas ma suuragali karto aniga oo dhowr meelood oo sharci ah ka tosay laakiin kuma uusan qancin arrintaas ayaa ugu weyneed waxa ay ugu maageen madaxweyne Farmaajo iyo asxaabtiisa ayuu gudoomiye Jawaari u sheegay Maxamed Cali Barre dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa mas'uuliyiin sare wuxuu xilka uga qaaday inay ka gaabiyeen ictiraaf raadinta maamulkiisa mas'uuliyiintaasi waxaa ka mid ah wakiilada Soomaaliya oo joogay dalka dibadiisa waxaana ka mid ah wakiilka Soomaaliya ee Ingiriiska Marwo Ayaan oo lagu eedeeyay ama Soomaaliya madaxweynaheeda Muuse Biixi uu ku haysto in ay ka gaabiyeen ictiraaf raadinta iyo isfaham waa kale oo isaga iyo iyaga u dhaxeeyay ugu dambeyntiina weerar dad badan lagu dilay ayaa saaxiibayaal wuxuu ka dhacay dalka Burkina Faso weerarka ayaa gaar ahaan ka dhacay galbeedka dalkaas Burkina Faso waxaana lagu dilay in ka badan 40 qof sida tirada dadka la xaqiijiyay ay haatan marayso halka lagu dhaawacay in ka badan 60 qof oo kale dalkaas Burkina Faso weerarkan oo jidgal ahaa waxa uu si gaar ah uga dhacay galbeedka dalkaas waxaana la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen shaqaale Kanadiyana oo ka shaqeynayay bacriminta macdanta ama soo saarista macdanta uraniumka guud ahaan daawadayaal warkeeni galwareed media saakay waan intaas nabadgeliyo